الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله waxaan rabaa inaan la wadaago dadka ku xiran qaybta YouTube-kayga oo duruusta iyo kala socota ayaga si gaar ah ayay mas'uuliyad uga saaran tahay Masjid Umar ibn Khattab dhismihiisa inay ka qayb qaataan tiradoodu 170,000 ku jira inay waxaan rabaa qof walba wixii uu ka qayb qaadan karo inuu yani ku soo daro masjidkaasi inuu ugu dhismo oo wixii duruus ah ama muxaadarooyin ah ama khudbooyin ah si aad uga faa'iideysataan aan meesha idin soo galino muddo intii uu dhismaha uu socday ah duruus badan ma aanan soo galinin maxaa yeelay meesha duruusta ay ka bixi lahayd ayuu dhismo ka socdaa dhismihii haddii una dhammaystirminna duruustii way naga sii dibdhacaysaa bishii barakaysteed ee Ramadaan ayaa inagu soo foolle waxaana bisha barakaysan ee Ramadaan duruustii Ramadaanka iyo wixii wacdi loogu talagalay masjidkii oo dhismay inaan idin la soo wadaagno si taasi ay u dhacdo waxaan ka dalbanaynaa ummadda Soomaaliyeed guud ahaan waan ka dalbanaynaa laakiin si gaar ah dadka ugu xiran page-kaasi in ayagu si gaar ah isu xilqaamaan masjidku waa masjidkoodii faa'iidada iyo duruusta ka soo baxaysa waa dadka ku xiran ka faa'iideysta ee dhageysta maanta waxa looga baahan yahay marka inay dhamaystirka masjidka qayb waxay ka qaataan Allah idin barakeeyo horena wada qayb qaadateen sidan marka si gaar ah inaan idin la hadlo waxa keenaya maanta baahida masjidku u baahan yahay oo dadka qaar ay u maleeyeen inuu dhamaaday masjidka dhismihiisu laakiin uusan dhamaanin qaybihii ugu muhiimsanaa ee finishing-ka ah uu yani u dhiman yahay musallihi dadku ay gadan jireen shanta boqol ahaa 161 musalle ayaa dhiman oo wali aan la qaadanin qofkii kilibkan uu gaaro oo qaadan kara hal musalle inuu waalidkii u sadaqeeyana waa uu furan yahay oo 500 ah dadka tirada badan ee laga yaabo inay isugu jiraan dad wax haysta iyo dad aan waxba haysanin inaan loo kala harin ka ugu yarna inta ugu yar ee uu heli karo inuu ku darsado maxaa yeelay intaas oo tiro ah oo wax yar isku dardartay wax weyn ayay qabanaysaa ee aan la helin qof aan waxba ku darsanin qof walba way u yaraan kartaa laakiin ebertu naga ilaaliya ayaa la yiraahdaa ebertu masjidka ka ilaaliya waa inaad wax ku soo dartaan dadka wax haystana wax qiimo badan oo runtii lagu farxo ayaan ka sugaynaa waxaan leeyahay Allah idin barakeeyo YouTube-kaas iyo page-kaas aad ku taxantihiin wixii duruus ah ee aad ka faa'iideysteen Allah idin ku anfaco maanta masjidka dhamaystirkiisana qaybta ugu muhiimsan ee idin ka falaynaa ka soo qayb qaata waa maasantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ما أنت وحنا سوي يرني قيبة كمدة ورباهنت مقالة مقدشو سي أي نوغلا قيب قاتان باهنت باهذا مسجد عمر بن الخطاب وقدام بيستي وحسو قاري قيبتي وقدام بيستي ولما يستير كأهيد وحن أرتكو مهد علينا إن الله سبحانه وتعالى ونفو ذي إن هل كان سو قارنو ثم دتك أهل خير كأها كقيب قاتي maalmaha dambe marka maadaama masaajidka qaybtiisii kore ay taagantay oo meel fog laga soo arkaayo dadka qaar waxay isaga qaateen masaajidkii inuu dhamaaday dadka dhismooyinka ka shaqeeya ama dhismooyinka dhistana waxay og yihiin marka la soo gaaro finishingka meesha loo yaqaano inay tahay meelaha ugu adag dhismuhu uu ka dhamaystirmo oo runtii aan aad u muuqanaynin laakiin kharashka ugu badan uu galayo masjidka fikradii aan ku dhisnay intaan ku soo gaarsiinay waxay ahayd in aan dadka Soomaaliyeed ahlu khayrka la wadaagno musalle inay uga qayb qaataan ama sajaayad wax la yiraahdo ama intuu qof ku tukado taas oo qiimaheedu uu yahay $500 sidaas dad badan marka oo dal iyo dibadba jooga ay 500 ugu sadaqeeyeen waalidiintood dhintay caruurtooda ay duco u rabaan sadaqa jaariyo oo masjidka inuu Ilaahay u geliyo kana aqbal ay ku weydiisanayaan muraadiyo badan oo ay leeyihiin ay u soo niyeysteen in badan way soo dhamaatay waxaan noo haray hadda qaybaha dhiman ee dariishadaha iyo sida ay tiin injineerka inoo sheegi doonee musallayaashii dadku ay sadaqaysanayeen waxaa ka dhiman 161 musalle marka 161 gaasi oo qof meeshuu ku tukado oo halkii musalle uu yahay ayaa waxaan rabnaa maanta inay noqoto sidii dadka ay mar kale ay u noqon lahaayeen dad arintaas ka qayb qaata haddii aan u qaybino Soomaalida yani adduunka daafiisa kala joogta inta Ilaahay wax uu siiyay 1,000 qof way ka badan yihiin haddii aan gudaha iyo dibadda aan fiirino marka waxaan soo jeedinaynaa 1,061 gaas sajaayad ama musalle oo halkii salli ama halkii musalle qof intuu ku tukado ay 500 tahay inaan u helno dadka qayb qaata waa 500 qof wuxuu bixin karaa mesela 1,000 waa laba qaybood ayuu qaatay ama laba musalle hadduu qaato 2,000 afar ayuu qaatay marka tiradaasi oo kooban ayaa masaajidka uu ku dhamaystirmi karaa
waxaana saa u yeelaynaa oo aan rabnaa inaan u dedejinno oo aan u helno kharashaadkaas si uuna u kala go'in masjidku bishii ramadaanna fooda aynugu soo hayso inaan ka gaarsiino musalliinta in ay ku tukadaan bisha ramadaan oo bil aad u khayr badan ah oo khudbadiina ay noo bilaabato dad aad iyo aad runtii dibadda u jooga ama gudaha jooga ayaana soo weydiiya khudbadii jumcada ee goormay bilaabanaysaa meeshii lagu khudbayn lahaa ee khayrka laga soo baahin lahaa ayaa dhammaystir nooga baahan haddii aanan helin arrintaas iyada ahna yani ramadaankii inuu dib nooga dhaco oo nala dhaafo dhismaha ayaan ka cabsanaynaa laakiin haddaan jawaab degdega helno oo kunkaas iyo 61gaas musalle dadku ay kala qaataan dadkii ahlu khayrka ahaa ee horay inta u soo qabtay mar kale haday ku rugaal celiyaan oo la isugu tago way dhamaanaysaa waxaan rajaynaynaa in bisha ramadaan quraankii lagu akhristo salaadii jamaacada lagu tukado taraawiixdii lagu oogo khudbadii iyo fadliga soonka iyo ahkaamta soonka looga sheekeeyo marka baaqaas ayaan maanta la wadaagaynaa aad waxaan ugu mahad celinaynaa qof kasta oo ka qayb qaata baahinta fariintan iyo qof kasta oo ka soo jawaaba oo musalla gata masjidku saddexda dabaq ee uu ka kooban yahay waxaan ugu kalifay inaan saa u weyneyno dhalinyarada ku soo xiran iyo dadka ku soo tukanaya oo badan daraadood in ay u helaan meel ay ku tukadaan marka maanta dadku adduunyada badeeca ayay soo bandhigtaan sokor ayay gadaan bur ayay gadaan oo ay faa'iido ka raadinayaan annagana waxaan soo bandhigaynaa sadaqa jaariya oo musallahan qofka uu sadaqaysto ilaa saacada qiyaam laga gaaray sida aan jecelnahay 200 oo sano oo soo socota habka loo diyaariyo in masaajidku sii shaqeeyo kadibna wax lagu sii darsan karo ayaan sidaas u sameeynaynaa marka waxay taagan tahay man dhalladhi yuqridu allaha qardan hasanan fayudaa'ifuhu lahu ad'aafan kathiira ya ilaahi wax amaahinaya ama deyminaya oo ilaahi uu laban laaba shaydaanku wuxuu ku qalqaalinaya qofka inuu soo waxba bixinin ilaahina wuxuu ballan qaadaya qofkii wax bixiya wuxuu bixiyeen inuu siiyo inuu bixiyeen ugu dambi dhaafo الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا marka labadaas ballanqaad midka shaydaanka iyo midka ilaahay naftu kii ay doorato ayay noqotaa qaybta ilaahay ballanqaadkiisa doorato ahlu khayrka ah waa dad yani deeqsinimo lagu tilmaamay ajir badan ay leeyihiin ilaahina uu laban laabaayo wixii ay bixiyaan shaydaanka kuwa raacay jidkiisana oo uu faqri uu sheegayna asagun baa khayrkii ka haray ilaahay sida uu leeyahay waman yabkhal fa inma yabkhalu an nafsi marka waa naftaada ka qaad intaadana u qaad akaankaaga adduunyo ka bixi kaaga aakhira dhigo yani masjidka ilaahay iyo sadaqadaasna ha ku dhismo cibaado ayaa meeshan loogu talagalay wa annal masaajida lillah marka waxaan leeyahay dadweynaha Soomaaliyeed ha ka soo qayb qaateen intaas waa musallaha iyo guud hadii la isku dardarsado oo dadka dhalinyarada ah ay isku dardarsadaan oo min boqol inta isku daraan hal musalla intay ayagoo meel kala duwan joogay dhahan aan hal musalla isla gadanno oo aan tijaaro raabixa oo ilaahay agtiisa aan dhiganana ayadana waa farsamo la sameyn karo laakiin anaga baaqaas ayaan maanta idin soo jeedinay ramadaankiina fooda ayuu nagu soo hayaa masjidka oo camiran oo qurux badan oo gogashiisii iyo dariishadiisii iyo agabka ka dhiman iyo korontadii iyo biyihii iyo weysadii ayaan rabnaa inay noqoto mid ay dadkii ay fahmaan oo ay ka soo qayb qaataan marka masjidkii hadii dadka qaar ay u haysteen inuu dhamaaday oo ahlu khayran ogahay yaani muuna dhamaanin dhamaystirkii ayuu baahan yahay aan kaga dhigno khitaamuhu miskun وفي ذلك فليتنافس المتنافسون خير لو ترتمو ayaa ugu fiican aada u mahadsantiin agabka noo dhiman iyo qaybaha ay kala yihiin waxay noo faahfaahinaa insha Allah taala injineer Maxamed oo runtii yaani juhdi weyn masaajidkan galiyay oo markii aan soo bandhigaynay asaga oo sawir masaajidka aan soo dhignay haddana asagoo amali oo ficil noqday oo yaani la taaban karo oo dadkii hortooda u yaalo ayaan maanta maraynaa waxaan sugaynaa qaybtaas inay oo dhameystiranto xafladii furitaanka iyo howlgalkii masjidkan insha Allah taala muddo oo kooban inaan ku guda galno waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed ilaahay idin barakeeyo intii hore uga qayb qaadatayna Allah ka aqbalo inta hadda aan ka dalbanayna Allah ka soo sahlo wa ma santiin salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh